الليله هلا ابو مقدا يا ودق لسيد عبها الليله هلا ابو مقدا sifik loo asaangareeyay inay fariisato qaybta dantiistaha runtii si aad la socotana ma saa u wada jeedaan in waxa ka socoto shaqo aad u ballaaran maalintii ma garanaysaa waxa ama erig loo galiya ama erig ma garanaysaa laga saara xanuunaya ilaa iyo 50 qof waxa way hadda ilaa xadin ma maantay hadda aynu joogno waxa ma garanaysaa eriga laga bixiyay 6 qof waxa way 6 qof oo kalena erika loo galiya ma garanaysaa cusub oo qalin iyo ma garanaysaa isku jira wax la yiraahdo iyo noocyo kale oo erika loo galiyo soodaad marka waxaan maanta ku marti qaadnay in aad nala eegtaan waxa ay shaqadu u socoto ma garanaysaa dareenka dadka mujtamaca dareenka ma garanaysaa dadka dhaqaatiirta ugu jooga mujtamaca aragtida ay ka qabaaneen ma garanaysaa hawshan marka wariyaal waxa ku soo dhawaataan ma garanaysaa qaybtan muhiimada ah waxaan ka rajaynaynaa inaad dadka u bandhigtaaniin dareenka ay dadku qabaaneen arintan iyo qaab dadka ay soo dhaweeyaan waan ka baxay wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo hormuud u ahaa ama dhaxalgal u ahaa in dhaqaatiirtan ay yimaadaan cisbitaalka guud ee gobolka Mudug iyo in ay booqdaan cisbitaallo kale oo Puntland ka tirsan waxa uu ka hadlayaa sida ay u soconayaan hawlaha ay wadaan dhaqaatiirtan laga keenay dalka Turkiga waxaana dadweynaha uu ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan dhaqaatiirta isla markaana ay u diyaar garoobaan sida ay ugu dhisan lahaayeen cisbitaaladooda iyo adeegyadooda caafimaad kalkaayo hospital wuxuu ahaa no go place waxa yiraahdaan meel aan la aadin meel magaciisa markii la maqlo la yiraahdo ma taqaana saas oo kale بفضل الله تعالى ما أنت وحنا مال الباب كيس اللي سكو كلنا يو ساعات أركتين به شغلة كسرت وحرشيننا إن شغلة هذا كسرت هاي سيدا يسرته نتكبع حدوينا هاي تماده ونسنتر ونقضه قبل هذا سوماليا سيدي أول وهان شريبة استولد هو وين قبل كهول قال الصومالي maalmihii ugu dambeeyay waxa socday hawshan walaalahan ay noo keeneen labada maalmood oo dambeysay waxa laga yaabaa haddii aan dadku aynu isu xog warranaa oo sida dhabtaa wuxuu jiraan aynu isu sheegnaa waxaa jira dad mar walba wixii khayr oo soo siyaada ka soo horjeeda dana gaar oo shakhsi ay leeyihiin dartood ayay waxay isku dayayaan inay hor istaagaan dacaayad ku furaan dhibaateeyaan wax kasta oo khayr ah ummadda loo keeno waxaan maqlayay dad hadda wararkooda aanu maqlay oo leh dadkii yimid waxa ma qaban qaar waxay yidhaahdeen dadkay ku barbaranayeen saas oo kale bal aan isweydiinay maxaad ummadda iyo dalka u qabateen dadka waxaas ku hadlaya isugu tagay inay xiraan isbitaaladii dadka ummadda masaakiinta ay ka shaqaysanaysa ay naftooda ugu badbaadinayeen waxaan mii sheegayaa halkan labadii maalmood u dambeysay wixii la qabtay idinka markaanti ka noqon doona qiri doona in wax la qabtay iyo wax la qaban dhaqaatiirta inoo yimid waa dhaqaatiir professionals weeyaan qaar baa Mareykan ka yimid dhaqaatiirta qaar baa Mareykan ka soo duulay oo u yimid hawsha tan xataa Turkiya aan deganin Mareykan لأنه وضع سكوهران وأورورا وإسباعيستي وأيمد إني أمت عاويان إلهي درتي سوى عاويان سيده الشيخي دكتور أوزدال وحتى إنوها اللهي ويرى أنه وحانا إنه كشرفنا ويري نبي محمد عليه الصلاة والسلام دتك سودوي صحابة السباعيدين بلاك ماشي كهالليان شكور كاسان هاي سنة ويري مارك النبي صحابة سكسو هاجرين معاكو إلى مكة وحي ماذا إنجيز كأفريكا taariikhda waxa ku qoran dadkii soo dhaweeyay Soomaaliya inay ahaayeen ama wax u dhow Soomaaliya inay ahaayeen sidaas daraadeed baan ku qiimeynaynaa uu leeyahay oo dalkiina ku nimid halkaas ay arrintu ka maraysa inaguna markii intaas oo dhibeen oo soo mareen baa laga yaabaa inaan dhibtayno baynu dhibno naftooda inaan dhibaato u geysano qaarkeen isku dayno dhibaato waxayo qaarkeen dacaayad fidino waxaynu nahay ummad aan diyaar u ahayn inay wax qabsato waxaynu rabnaa inaan ku noolaano
huuhaa iyo waxaan jirin. waxaan u baahannahay hadalka in loo bedelo action, ficil in loo bedelo waan u baahannahay. labadii maalmood oo u dambeysay, maalintii ugu horreysay weliba hawsha si fiican isuma duba dhicin, waxaa ilaahay fadligiis noo suurtoobay 773 qof in lagu daaweeyo isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo. waxaa noo suurtoobay 773 qof 152 qof qalliin weeye, oo qalliinka fudud ah. 152 qof waa qalliinada fudud weeye. waxaa noo suurtoobay ilaahay fadligiis 6 qalliin oo qalliinada khatarta ah la sameeyo. barina waxaa faylka ku jira 12 qalliin oo iyaguna khatarta ah. waxaad garan kartaan marka maalintii ugu horreysay oo weliba xaaladdu iyo maantay shaqada nimankaas ay qabteen 1930 isbitaalka la dhisay. yaa ii sheegi kara qof ma ii sheegi karaa ma jira shaqo intaa leeg isbitaalkan laga qabtay 2 maalmood. ummad intaa tira leeg in daawo la siiyey lacag la'aan, service intaa leeg in loo sameeyey. yaa ii sheegi karaa in xataa qof ilig laga saaray isbitaalkan taariikhdiisa. waxa weeye indhihii iyo ilkihii iyo sankii iyo dhagihii iyo cunihii iyo lafihii iyo qalliinkii intaba isku saacad bay soconayeen. waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. waxayna ahayd in dadku ku mahadnaqo dadkii hawsha inoo keenan ay soo dhaweeyaan heel iyo hooba. waxaanu ka hadlaynay sidii loo soo dhaweyn lahaa iyo martiqaadkooda waqtiga inoo yimid. waxaynu u qaadatay muddo dheer inaynu maalintii waxaa ku baxaysay wax yaroo lacag ah waryaad bixinaya. dadku lacagta way haystaan laakiin waa inay huraan. lacagtu way buuxdaa. 20 milyan oo dollar baa bishii soo gashay Gaalkacyo. waxaanu weynay ciddii aan la kaashan lahayn soo dhaweyntii. raggii hawsha ka shaqeeyay dhibka u mareen way la socdaan. waxaan u baahannahay in la bedelo marka fikirka noocaas in la bedelo. oo adduunku waa give and take weeyaan, waxbaa lagu siinayaa waxna waa qaadanaysaa. waa inuu sidaa noqdo. ilaahay ma maad iskale la waafajiyay. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala qaybaha dambe shaqada soo socota inaanu xirno rikoorkii aanu doonaynay 1,200 qof inaanu ku daaweyno. ilaahay idankiis kadibna loo gudbo Puntland meelaheeda kale oo magaalooyinkeeda kale baahida baan ka jirto. isku soo wada duub oo xaaladda guud ee cisbitaalka gobolka Mudug waa isbedeshay sidii lagu yaqaanay sanadihii la soo dhaafay. waxaana tan ay rajo weyn gelinaysaa dadweynaha magaalada Gaalkacyo. haddii ay howlahan caafimaad oo kala sii socdaanna waxaa macquul ah in isbeddel rasmiya laga dareemo caafimaadka deegaanada Puntland iyo deegaanada ku hareeraysan, maadaama cisbitaalka guud ee gobolka Mudug uu yahay cisbitaal ku yaala meel istiraatiiji ah, isla markaana ay ku xiran yihiin gobollo kala duwan oo Soomaaliya iyo Itoobiya ka tirsan. waxaana dadka howlaha caafimaad loo fuliyay iyo dadka qaraabadooda wadaba ay aad ugu riyaaqeen howlaha ka soconaya, iyagoo dhakhaatiirta ka codsaday in ay labalixaadiyaan ama ay marar badan ku soo laabtaan si ay howlo caafimaad ugu fuliyaan dadweynaha Soomaaliyeed ee doonaya in howlo caafimaad loo fuliyo. guud ahaanna barnaamijkii aad kala socoteen shabakadda warbaahinta puntland.com intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. waa Cabdinaasir Cali Ibraahim oo barnaamijka idiin soo tabinayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.